hay-adda samafalka ee huda ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland iyo xafiiska hay-adda samafalka madaxtooyada Somaliland ee gobolka Awdal oo uu heliyo gudoomiyaha gobolkan ayaa waxa ay deeq raashin ah u qaybiyeen dadka abaaraha saameeyeen ee ku dhaqan dhulka buuraleyda iyo xeebaha ee goboladan Awdal iyo Salal. deeqahan oo isugu jiray saliid, sonkor, timir iyo daqiiq ayaa waxa loo qaybiyay dadka abaaraha sida weyn u saameeyeen ee ku dhaqan dhulka buuraleyda iyo xeebaha ee goboladan Awdal iyo Salal. ayaan Cali Cumar oo ah suduwaha xafiiska hay-adda samafalka madaxtooyada ee gobolka Awdal iyo Cabdinaasir Iid Maxamed oo ah madaxa hay-adda Al-Huda oo ka kala hadlay madalihii deeqahan lagu kala bixinayay ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen deeqdan waxa ay ka kooban tahay iyo qoysaska loo qaybiyo tiradooda. deeqdaashina waxay noo keentay hay'adda Al-Huda oo mar ahayn oo mar labaad ahayn oo dhowr jeer ku soo noqday gobolka Awdal. waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Al-Huda madaxdooda Cabdinaasir oo aad dhowr jeer hore u yimid kulay in badan lagu arkay dad badan oo tabaalaysanay in isaga gudoomiyaha gobolku ay soo arkeen way jirtaa. أنا أقول يا مجا حياة كذا حياة وطني أنا هقول قشة حياة أرجمها بالشدة تعليم ترى الجوهر الرئيسي لقد نوحي كتمد جمعيات مركز قدرها والله يرحمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله الثاني ومؤسسة خيرية أو قدر كتيرته runtii taageero badanna geysatay wadankeena gaar ahaan ka geysatay waxaanay deeqdani ka kooban tahay bariis, sonkor, daqiiq, saliid iyo timir ay ka kooban tahay. kunaas anagu waan ugu talagalnay 400 qoys laakiin dadka maanta qaadanaya ay runtii aad uga badan yihiin sida odayaasha ay noo sheegeen degmaduna la 800 qof inay gaarsiin doonaan hadii Ilaahay raaxo. maayarada degmooyinka Lughaya iyo Boon oo ka kala hadlay madalahan ayaa iyaguna waxa ay amaan u jeediyeen hay-adda samafalka madaxtooyada Somaliland xafiiska ay ku leedahay gobolkan iyo hay-adda Huda oo iska kaashaday qaybinta deeqahan. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayar oo isaguna ka hadlay madashan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka abaaraha saameeyeen ee ku dhaqan dhulka buuraleyda iyo xeebaha ee gobolka Awdal. maanti baahidu maaha mid ceel baxay oo keliya ku eg baahidu waa mid baahsan oo gobolka oo dhan ka jirta abaar aad iyo aad u kulul baa ka jirta meelaha qaarkood aanu soo dhaafnay halkan way ka sii daray runtii meelo aad uga daran bay ahaayeen markaa waxaan rajaynayaa hay-adda Al-Huda iyo hay-adka kale ee khayriga ah ee dalka jooga waxaan leeyahay cid allaana ciddii samafalka wanaagga iyo samafalka jecel hala soo gaadho dadka baahan ee ku sugan deegaamada Awdal iyo Salal hala soo gaadho deeq ayaan leeyahay oo aan ugu baaqayaa cid kasta oo deeq bixiyayaala oo ka geysan kara gacan. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.